Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is your brother Khalid Yunus Usman, and you are watching Khaludi English Updates, English for Beginners, Lesson 5. Videoga aad hadda la socotay waa cashirkii shanaad ee loogu talagalay ardayda bilowga ee luqadda Englishka hadda bilaabaysa. Haddii aad marti inoogu tahay oo videogan yahay videogii u horreeyay ee daawato, fadlan waxaan kugu dhiirigelinayaa inaad soo daawato afarta video ee kan ka horreeyay. haddii aad ka mid tahay familiga Khaludi English Updates oo horey aad usoo daawatay afartii cashir ee ka horreeyay kan, kusoo dhawow cashirkaaga cusub ee English for Beginners Lesson 5. cashirka maanta wuxuu ku saabsan yahay bedroom vocabulary. waa erayada aynu isticmaalno marka aynu ku jirno qolka hurdada ama bedroomka. markaynu ku jirno erayada ugu badan ee aynu isticmaalno ama qalabka agabka inoo dhex yaala qolka hurdada, waxyaabaha lagu magacaabo ee loogu yeedho af English ayaynu isla eegi doonaa insha Allah. shayga u horeysa ee aynu ku bilaabaynay waa shayga ugu weyn uguna muhiimsan, la-aantiina qolka hurdadu uuna noqonayn qolka hurdada, waa af English bed. bed B-E-D bed. bed waa sariirta, waa ta la-aanteeda ayna noqonayn qolka hurdada. bed waa sariirta. inkasta oo Soomaalidu ay iska dhigtaan keliyaata hadday doonaan caw ama firaash ay iska dhigtaan, kuwaasna waan isla eegi doonaa magacdooda iyo waxa loogu yeedho. ta ugu muhiimsan ee qolka hurdada ka dhigaysa se qolka hurdada waa sariirta, taana waxaa la yidhaha af English bed. bed waa sariirta. haddii qolkaagu una sariir lahayn oo aad ku seexato firaash, firaashka waxaa la yidhaha af English mattress. mattress sawirka hadda kuu soo baxaya waa mattress. mattress waa firaashka. waa haddii aad firaash godlatid ama firaash aad ku seexatid. haddii aad caw godlatid, caw ama bal haddii aad godlatid, Soomaalida qaarna waxay yidhaahdeen sijaayad. haddii aad sijaayad ama caw ama bal aad dhigato, iyadna af English waxaa la yidhaahdaa mat. mat M-A-T mat. mat waa cawda. bed waa sariirta. mattress furaashka. ereyga kale ee inoogu xiga ee hadda kuu soo baxayay waa pillow. pillow waa barkinta. iyadna waa muhiim, la-aanteed qolka hurdadu ma noqonayo qol hurdo, seexana kari maysid. pillow waa barkinta. pillow waa barkinta. pillowna waxay noogu xigaa qolalka qaar dhanka hurdada. laydhasha aynu soo gashanayay waa ay ka duwan yihiin laydhasha inoogu jira qolalka kale. laydhar yaroo waxaa jirta loogu talagalay sariirta agteeda in la dhigo, taana waxaa loo yaqaan af English lamp. lamp waa laydhasha la dhigo sariirta agteeda. waxaana la isticmaalaa marka aanad rabin inaad laydh badan guriga aad soo gelisid, maqsinka aad ku jirtid oo laydhka aad iska yarayso, kaasaad isticmaalaysaa lamp. af Soomaali ereyga ugu dhow macnihiisu wuxuu noqonayaa faynuus. faynuus lamp. lamp faynuus. sawirkan kale ee hadda kuu soo baxay waa isagna shay muhiim ah, inkastoo badan qorka hurdada aan la dhigan, laakiin haddana qolalka qaar sariirta agteeda ayaa la dhigaa. waxaana loo yaqaan af English carpet. carpet. carpet waa ruumiga aanu iskaga fadhiisano marka qaar markaanu doonaynaan sariirta aynu ku fadhiisano. carpet af English marka qaarna waxay ugu yeedhaan rug. R-U-G rug iyo carpet labadaasiba waa isku macno, xagga macnaha isku mid bay ka yihiin, ma kala duwana. ereygan kale ee inoogu xiga waa erey ku dhawaaqitaankiisa iyo qoraalkiisu aan islahayn. qoraalkiisa marka la qoraayo waa D-U-V-E-T. marka la akhrinaysa waxaa loo akhriyaa duvet.
duvet marka la akhrinayo waxaad u akhrinaysaa duvet. Duvet waxaa la yidhaahdaa waa wax sida bustaha u eg oo waxaynu ku godlanaa sariirta ayaa lagu godlaa. Busto waa iska dhahnaa Soomaali busto un baynu nidhaa, laakiin waxaa loo isticmaalaa in sariirta la dul dhigto ama lagu dul godlado ayaa loo isticmaalaa. Magaciisana waxaa la yidhaahdaa duvet. Duvet sariirta ayaa lagu godladaa waana loo isticmaalaa. Sawirkan kale ee hadda kuu soo baxay ama kuu muuqda isagana waxaa la yidhaahdaa photo frame. Photo frame inkastoo Soomaalidu ama Muslimiinta badankood ayna guryahooda dhigan wax sawiro ah ama gidaarada qolku ayna ku dhejin wax sawiro ah, wadamada aan Muslimiinta ahayn, wadamada galbeedka oo kale, shaygan qolkooga ayuu u yaal. Waa frame la dhex dhigto sawirada ama sawirka ay doonayaan inay meesha ka muuqdo. Wuxuu noqon karaa ubax, buu noqon karaa, wuxuu noqon karaa sawir ciddii maqsinkaa gelaysay labadiis qabtay buu noqon karaa, wuxuu noqon karaa sawir si kale ayuu noqon karaa. Laakiin Soomaalidu badanaa waxay guriga ku dhejistaan qoraal ay ku qoran tahay laa ilaaha ila allah oo kale iyo allahu akbar oo kale iyo magacada ilaahay ku qoran yihiin. Sharaxaad aynu ugu sharaxano way jiraan. Marka photo frame waa bahalkan aad sawirka dhex gashanaysid. Shayga kale inoo soo baxay hadda oonan ka helno qolka hurdada, isagana waa shay aad u muhiim ah. Waxaan qolalka yaga inkastoo badanaa aynu wada dhigan, laakiin qolalka qaar iyo qolalka kirada loogu talagalay ee hoteelada waad ka helaysaa. Waxaana la yidhaha of English leather sofa. Leather sofa. Leather sofa waa fadhi ama kursi ka samaysan leather. Marka lagu leeyahay wuxuu ka samaysan yahay yacni harag buu ka samaysan yahay leather sofa marka lagu yidhaah. Way jiraan kuwo ka samaysan harag, way jiraan kuwo ka samaysan waxyaabo kale, laakiin adigu guud ahaan hadafka laga leeyahay waa kursi sida fadhiga u eg sofa oo lagu fadhiisto, sariirta agteedana la dhigto. Sawirkan kale ee hadda kuu soo baxay isagana waa shay muhiim ah oo laga helo qolka hurdada. La-aantiina xilliyada qabowga ah aan qolka hurdadu noqon karin qolka hurdada. Isagana of English waxaa loo yaqaan blanket. Blanket waa bustaha qofkan jiifa ama seexanaya uu huwado xilliyada qabowga. Blanket waa bustaha. Blanket waxay noogu xigaa sawirkan hadda kuu soo baxay. Isagana waa shay aynu ka helno qolka hurdada oo aad u muhiim ah. Waa meesha aynu dharkayaga ku asturano ee aynu gashanno. Waxaana loo yaqaan of English wardrobe. Soomaali macnihiisu wuxuu noqonayaa cupboard. Anu cupboard baan u aqaan. Cupboard buu noqonayaa. Cupboardka aynu dharka gashanno ayaa loo yidhaahdaa wardrobe. Shayga kale inoogu xiga isagana aynu ka helno qolka hurdada waa shaygan hadda sawirkiisu kuu soo baxay. Isagana waxaa loo yaqaanaa stool. Waa kursi yar oo ku fadhiisi loogu talagalay. Waxaana loo isticmaalaa marka aynu qolka hurdada wax ku akhrisanayno iyo marka aynu wax qorayno ayaa la isticmaalaa stool. Barjan waad odhan kartaa, adu waa kursi kuraasta kale uu ka duwan yahay. Fadhiga ayaana loo isticmaalaa oo waa lagu fadhiistaa. Of English stool. Ereyga haddii aad dictionary-ga weydiisid laga yaabaa inuu kuugu macneeyo si ka duwan macnahan hadda ku siiyey. Haddii macnaha dictionary-ga la raaco oo dhakhtar aad tagtid ood baadhitaan iyo waxa aad isku soo sameynaysid, stool waxaa lagugu macnayn ama macnihiisu uu u dhigmay saxaro. Saxarada uu qofku saxaroodo marka uu suuliga tago. Waxaad haddana u isticmaali kartaa kursiga yar ee sawirka hadda kaaga muuqdo. Waxaad eegi markastiba meesha weedha la soo geliyey iyo contextka guud ayaad eegi macnihiisa markaad raacaysid. Sawirkan cusub ee hadda inoo soo baxayna isagana waa shay aad u muhiim ah. Badanaa waxaynu ku xidhnaa xagga albaabada iyo daaqadaha. Magaciisana waxaa la yidhaahdaa of English sida uu qoran yahay u akhrin maysid. English saa uu qoran yahay u akhrin maysid. Waxaa la yidhaahdaa akhriska curtain. Marka la akhrinayo maxaa loo akhriyaa curtain.
curtain af soomaali macnihiisu wuxuu noqonayaa daaha aynu ku xidhano albaabada si yacni laydha dabeesha iyo uu nooga qabto iftiinka zaa'idka ee qorka soo galaya. curtain haddaba arday waxay noogu xigaa sawirkan hadda kuu soo baxay isagna laga helo qolalka jiifka qaarkood, waxaana loo yaqaanaa couch. markaad akhrinaysid waxaad u akhrinaysaa couch, couch, couch waa fadhi. noocyadan oo kale waxaad ka helaysaa meelaha sawirlayaasha marka aad tegtid ama raislayaasha marka aad tegtid meel dadka lagu sugsugo ama hoteelada oo kale. qolalka fadhigana qaar layska dhigta ayaa jirta, waxaa loo yaqaan couch waa fadhiga uu qofku ku fadhiyo ayaa la yidhaahdaa. arday waa muhiim inaad ku qorataan erayadan cusub eed hadda ku baranaysid videogan buugaaga iyo macnahoogaba inaad isku garab qorto si aad u xasuusato hadhow aanad u ilaawino insha allah. sawirkan kale ee hadda kuu soo baxay ee kuu muuqda isagna waa shay qolalka qaar laga helo, waxaana loo yaqaan bookcase waa kabadh aynu saarano buugaagta muhiimka inta qolka jiifka ku akhrisan rabno. bookcase waa isagna shay muhiim ah, waxaana loo yaqaan af soomaali kabadhka buugta lagu gurto, bookcase. shaygan kale ee hadda sawirka inooga soo baxay isagna waa shay aad u muhiim ah, waxaana loo yaqaan hanger waa qori, mararka qaar bir buu noqon karaa. waa shay aynu suudhanno ama aan saarano dharka yacni aynu ku baxayno ama dharka hurdada markaan iska bedelno meel aan saarano ayaa la yidhaahdaa hung keligeed waxay ka dhigan tahay shay aad meel ka soo laadlaadin. hanger waa shay dharkaaga aad kasoo laadlaadinaysid si iyaga oo sideedii ah aad u xidhato mar dambe iyagoon kaa jectadin. sawirkan kale ee hadda kuu soo baxay isagna waa sawir aada u muhiim ah, waa shay aynu isticmaalno qolka hurdada marka aynu ku jirno. badana waxaad u isticmaalaysaa qolka hurdada ee aada seexatid marka uu yahay mid suuli leh. af english waxaa loo yaqaan sleepers waa dacaska qolka haddii marmar oo kale uu yahay oo yani qabowga ku dhibayo oo kale waad iska isticmaali kartaa. haddii suuli uu leeyahay markaad suuliga u gudbayso ayaad isagna isticmaali. af english waxaa la yidhaha sleeper, af soomaalina waa dacas. shaygan kale ee hadda kuu soo baxay isagna waa muhiim, inkasta oo uu bedelay taleefanada iyadu hadda shaygan ay bedeleen. waa shay qolalkayaga laga helo, waxaa la yidhaha alarm clock. waxaa loo isticmaalaa marka aad yani subaxii rabtid hore inaad u kacdo, qofka kiciyana uuna kuu dhoweyn. waa shay aad ku buuxsanaysid waqtiga si uu kuu toosiyo. qolka hurdadana waa laga helaa alarm clock. shaygan kale ee hadda kuu soo baxay isagna waa shay ka mida waxyaabaha aynu qolka hurdada dhigano, gaar ahaan aynu u isticmaalno marka aan wax akhrinayno. af englishna waxaa loo yaqaan chair, chair waxaa loo isticmaalaa marka aad ku fadhiisanayso ama waa kursi buu noqonayaa af soomaali macnihiisa. haddaba ardayay shaygan kale ee inoogu xiga chair isagna waa shay aada u muhiim ah oo aan laga maarmin qol kastina dabcan ku jira. af english waxaa loo yaqaan dressing table waa mees muraayad wata, isagna loo isticmaalo marka aynu rabno dhar cusbaad yani xidhatay, dibadii baad u baxaysaa, dharka inaad si saxa u xidhatay, inuu jactad lahayn, meelaha aad isku eegayso ayuu ka mid yahay. waa muraayadan aad soo hor istaagaysid, badana perfumekaaga, cadarkaaga iyo kareemadaadu ay kuu saaran yihiin, muraayadeedana aad isku eegaysid. waa dressing table waxaa loo isticmaalaa labiska ayaa loo isticmaalaa.